Hal arrin ayaa sabab u ah in aad dareento awooddaada inay yaraato, sidoo kalena daal iyo caajis aad ku dareento shaqada maalinlaha. Haddii aad ka mid tahay dadka dareemaya awoodoodu inay hoos u yaraatay, firfircoonidii ka luntay, shaqada ay ku dareemayaan caajiska, sidoo kale aad dareemayso daal, waxaad u baahan tahay arrintan inaad joojiso. Waxaad u baahan tahay arrintan in aad wax ka qabato. Sababtoo ah arrintan si maalinle ah markaad u samayso, waxaa imaanaysa in sokorta dhiiggaada ay si degdeg ah hoos ugu dhacdo. Sababtoo ah haddii sokorta dhiiggaaguna hoos ay u dhacdo, waxaad dareemaysaa daal, sidoo kale waxaad dareemaysaa madax xanuun, sidoo kalena waxaad dareemaysaa in feejignaantii iyo diiraddii iyo firfircoonaantii shaqada aad ku qabtay aad weyso. Waxaana shaqada ku dareemi doontaa daal, tabartaadina way sii yaraanaysaa. Sababtoo ah dad badan oo arrintan si maalinle ah u sameeya xaaladdan ayay ku sugan yihiin. Dad badan oo joojiyayna wax badan ayay isaga garteen. Waxaa muhiim ah arrintan inaad ka fogaato. Marka lagu leeyahayna wax kale maaha, waa quraacda. Inta badan quraacdu waa cuntada ugu muhiimsan ee maalintii. Qadada iyo cashada waxaa ka muhiimsan quraacda. Sababtoo ah quraacdu waxay jirkaaga siisaa tamar iyo nafaqo laga maarmaan u ah jirka si aad u shaqayso si wanaagsan. Marka qofku quraacdu iska dhaafo, waxaa dhacaya heerka sokorta dhiigga ayaa dhacaya, hoos ayuu noqonayaa. Qofka markaas wuxuu dareemayaa daal, madax xanuun iyo inay feejignaantii ka lunto, shaqadiina uu si fiican u gudan waayo. Haddii aad doonayso marka waxqabad wanaagsan, in aad shaqada ku qabato, si fiican u qabato, firfircooni dareento, awooddii iyo tamartaadii ay soo laabato, meelka lagama haysto. Quraacda in aad maalintii ku bilowdo subaxdii xilli hore, weliba 7 ka hor ama 1 saac sida u taqaano ka hor subaxnimo, waa inaad quraacda ka bilowda hawsha.